عليكم أصحابتي قيمة بدن إيه هالك كحولن waxaan maanta ka hadli doonaa furiinka shaadiye sharaf waa arrin kale oo mucjiso ah oo maanta muuqaalkan ku tuubayno laakiin saaxiib shaadiye sharaf wata ma furay Cabdi Fataax Yare muuqaba maxaa ka jira inay Turkiga ku nooshahay oo maartay in Cabdi Fataax Yare kala tageen soo waxay Turkiga ugu nooshahay waxyaalaha halka ka jira iyo arrimahaas oo dhan ayaan barnaamijkeena kaga hadli doonaa balse maanta marka hore qolmada wada qiimaha badan waxaan ka codsanayaa inaad marka hore muuqaalkeena like saarto sidoo kalena u share garayso asxaabteena kale ku xiran barteena Facebook sida YouTube-keena Cabdulla Deeqsina aad subscribe raxato sidoo kalena aad furato gambaleelka maadaama oo gambaleelka iyo subscribe hadii aad furato saaxiib ay noo noqonayso inaad muuqaal kasta oo qiimo badan oo soo dhignaba aad si fiican maaragtay ugu diyaar galowdo amba had ka qayb qaato oo daawato oo si gudbi asxaabtaada saaxiib hadii ay ku tahay waqtiga salaada lagu jiro fadlan soo tuko maadaama lagu jiro bil Ramadaan iyo mar kasta bay ku tahay muuqaalkayga hadii ay kugu soo dhaco adiga oo ku jira waqtiga salaada saaxiib waxaan ka codsanayaa inaad u diyaar galowdo salaada kadib soo tukato oo soo noqoto muuqaalka oo daawato waar saaxiib waa digniinta ugu dambeysay saaxiib ku mashquulin intaad muuqaal ku mashquulayso iyo ku dhaafi salaadaha Ilaahay arrintan maanta aan ka hadlayna waa furiinka Shaadiye Sharaf iyo Cabdi Fataax Yare maxaa ka jira waa arrin xasaasiya taasi oo si weyn uga hadli doono barnaamijkana timi muddooyinka ugu dambeeyay maadaama ay Shaadiye waqti badan ku qaadanayso Kenya Ethiopia iyo sidoo kale dalka Turkiga haddaba arrintan ayaan barnaamijkan maanta kaga hadli doonaa marka hore saaxiib intii aan ku sheegay samee salaada soo tuko muuqaalka la garay sidoo kalena subscribe dhaho kamalelkana furo daawadashadana u diyaar galow maadaama ay tahay arrin xasaasiya oo si weyn aad ugu baahan tahay inaad dhageysato ama aad ka bogato arrintan maanta ku hadlo waa xaqiiqooyinkii dhabta ah ee ka soo ogaanay arrinta waxa ka jira Shaadiye Sharaf waxay ku nooshahay Turkiga gaar ahaan Istanbul muddo ka badan bil iyo bar ay halka ku nooshahay oo la duubtaa fiidiyo iyo sidoo kale muuqaalo qurux badan kamida asxaabta Facebook ku jira oo lagu magacaabo ashkay waa nin YouTuber ah oo sidoo kale ku nool dalkaasi Turkiga kaasi oo muuqaalo fara badan la duubto Shaadiye ilaa bil in ka badan baraankiyo la sameeyso sidoo kalena ay arrimo xasaasi ah saaxiibayaal markii hore waxaan ogeyn inay Shaadiye ku maqnayd Kenya Nairobi oo hay halkaas muddo ku soo maqnayd ilaa bil ku dhawaad ah amba hadii ay bil aysan ahayn in aanan ka badnayn hayn bilka yar ugu dambeey waxay tagtay Addis Ababa halkaasi oo hay la ogeyn arinta uu tagtay iyo soo u tagtay balse waxay ugu dambeyntii u baxday Turkiga markay tagtay waxay sameysay damaashaad farxad iyo mid kasto oo maaragtay qof iskaabul lagu yaqaanay halkaasi oo la arag iyadoo xataa soo hadal qaadaysa ninkeeda muddo badan isweydiin badan ayaa ka dhalatay asxaabtuna markaas ayay dareemeen inay jirto wax kala durugsanaan ugu yaraan ah amba kala tag rasmi ah waxa kale oo si kale baraha bulshada la faafinay inuu Cabdi Fataax Yare guursay gabadh kale Shaadiyana ay sugaynastay laakiin gabadha kale ma cadeynin karno inaku maadaama oonan inaku ku dhex jirin laakiin waa gabadh sawirkeedu si weyn baraha bulshada ugu faafay Cabdi Fataax iyo Shaadiye Sharaf waxay hayeen lamaano sharaf iyo qiimo ku dhexla ummadda Soomaaliyeed karaamana loo hayo waxay hayeen lamaanayaasha ugu qaalisan ee jacaylka laga diido marka laga soo tago Dayaxdal Nuurshe iyo sidoo kale Cabdirasaaq Anshax arrintan markii la shaaciyay weynay kala tageen dad badan ayaa moral jabrunaantii oo taageerayaasha iyo fanaskooda ah kuwaasi oo xataa anaga kula hadlaya ku jiray muddo in badan ayaan ka hadlay oo sheegay inay Shaadiye iyo Cabdi Fataax aysan kala tagin oo isla joogaan laakiin baaritaan ayaan ku maqnaa saaxiibayaal baaritaankan ayaan idin la wadaagi doonaa balse marka hore Shaadiye Sharaf iyo Cabdi Fataax Yare inay kala tagaan maxaad ka qabtaa ra'yigaaga commentiga ayaad noogu reebaysaa sidee ayaad aragtaa maadaama ay labadan lamaane ee sharafta la kala tageen maxaad u maleynaysaa inay dadka kale la sameyn doonaan ma inay iswada joogi doonaan mise inay sidaas iyaguna dad badan ay u kala tagi doonaan waa arrin kale oo iyadna muujinaysa inay haddan jirto inay si furiinku sii badanayo maadaama oo lagu jiro bil Ramadaan haddana uu furiinku badanayo waxaan ogeyn rashka maxaa la dhahay wiilkii la leeyahay Sharma Boy iyo sidoo kale in la yiraahdo isna socdaal iyo sidoo kale Fartuun Balbalaarka dad badan ayaan ogeyn in furiinkoodu si leefa u dhacay haddaba Shaadiye Sharaf iyo Cabdi Fataax Yare aan u soo noqono maxaa ka jira furiinka Cabdi Fataax Yare iyo Shaadiye Sharaf may kala tagin Cabdi Fataax iyo Shaadiye Sharaf maxay u doontay Turkiga Shaadiye Sharaf muxuu si Cabdi Fataax Yare uga soo muuqan waayay baraha bulshada ama barteeda YouTube maadaama uu yahay ninkeeda waa arrimaha sida weyn isku weydiinaysa kana dhex ku haya maskaxdaada maanta saaxiib aniga ayaa ka jahil tiraya Shaadiye Sharaf marka hore waxay u aaday Turkiga inay aado dhakhtar maadaama aysan waqti badan yeelan awlaad arrintaas ayaa halkaas u aaday sidoo kale waxaa jiray isku buuq yaro xagga maskaxda oo halkaas u aaday inay ku soo digto maadaama aysan Muqdisho maadaama ay nabad sax ka jirin inaysan ku raaxaysan karin oo ayna dalxiis badan ugu bixi karin daafaha magaalada Muqdisho dalkeena Soomaaliya wuxuu marayay xaalad xasaasi ah sanad ogeey laakiin Turkiga markaa tagto waad nafisaysaa Cabdi Fataax Yare awlihiisa kale ku mashquulay wuxuu sameystay ganacsi kale waa sidahan xogta ku helay
asxaabteenu waxay dareemeen cidhiidhi badan laakiin ma jiro wax furiin ah oo ilaa hadda la shaaciyay sida ay wareysi dhowr jeer ay bixisay ku sheegtay cabdifataax shaadiye sharaf waa sidoodii way isjecel yihiin waana nin iyo naagtiis waa ilmo ayay hooyo iyo aabbo kala yihiin dhexdoodana jooga waa lamaane muddo badan sheekaysanayay waa lamaane jacaylka iyo farxadda ku ah kuwa caan ku ah waa lamaane lagaga daydo romantiga iyo jacaylka iyo maaragtay wax kastoo isdhexgala ma aha lamaane si dhib ku kala tegaya aniga ayaa xaqiiqda idin sheegaya cabdifataax hawlihiisa ganacsi iyo ku mashquulay wayna isla ogyiin inay dadku ku mashquulsan yihiin laakiin uma rabaan in u jawaabaan shaadiyana turkiga ay saas u aaday arrintan haddaba barnaamijku waa kaa saaxiib ee barnaamijku noo leeyahay